الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. markii tan iyo maalintii go'aanka madaxweynaha aan ula tagnay ee aan cidii aan u igmadnay in ay ka soo hadlaan arintaas ay u tageen ee sida bareerka ee xaq darrada ee xaqnimada u diiday waxaanu isugu nimay shirar gobolka Sanaag waxaanu tan iyo magaalada Xiis ilaa iyo Karin Berbera waxaanu abaabuleynay colaad dagaal oo madaxweynuhu galay waxa go'aamo laga soo dhigay in dib dadka la isugu soo celiyo laga soo saaro go'aankan iyo baaqan ay beeshu wada qaadatay waana tii kama dambaysta ahayd ma aha midaanu ka dul qaadanayno hadduu maxamed dhuubsade ku daray dhagartii saarayd hadda cali dhagoole dhuubsade ku daray dhagartii saarayd haddii adeerkii wasiir noqday oo madaxweyne Siilaanyo leeyahay ayaa wixii la dilin oo wiil dhagoole badbaadinayo annaguna in adeerkii waan u arayna waana mid dhici doonta oo maanta imanay go'aamada beeshuna waa sida tan haddaanu nahay beesha ka soo jeedo marxuum gaashaanle Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud oo la dilay kowdii bishii 3 waxaanu maanta joognaa 8 bishii 2017 waxaanu samreynay muddada sanadka ah haddaba raggii la midka ahaa saraakiisha ciidamada ahaa waa la dilay oo waxa lagu dilay magaalada Berbera gudaheeda muddo 3 casho gudahooda sida ninkii dilay taliyihii Berbedka waxa halka ka cad in dadku kala sareeyaan oo beesha Ciise Muuse magaalada Berbera ay ku anjabayso Berbera burburi doonto hadii dadka iyaga la laayo laakiin go'aanku wuxuu ahaa in maanta dadku sinaadaan waa la waayay sinaan iyo cadaalad markii ay maxkamaddu xukuntay gacan ku dhiglayaasha hawsha ku lug lahaa ee la horgeeyay maxkamadda aanu xukunkii madaxtooyada horteeda aanu geynay madaxweynaha inuu fuliyo oo qisaasta oo xaq u leeyahay fuliyo ayadaha quraanka iyo diintuba cadeeyeen waxay ogolaatay oo aanu arrinka madaxweynaha ka filaynay in uu ku qanco oo noo qisaaso dadka wixii la hayo taana madaxweynuhu wuu diiday si badheer oo cad mudana madaxweyne dadka iyo dalka iyo qaranka Soomaaliland adiga ka mas'uula wixii shar iyo khayr yimaadana adiga ka mas'uula wixii aakhira la imanayana adaa laga xisaabtamaya wixii ifka joogana adaa laga xisaabtamaya muu yeelin inuu Siilaanyo ku xadgudbo shariicada madaxweyne Siyaad inuu ku gudbo shariicada islaamka inta rag iyo dumar ku simay ee ma oran diinta islaamku ma jirto adigu soo waxa tiri ma jirto dumar qaadiyada ay faraysidan taana ka dulqaadan mayno mudane madaxweyne haddaad indhaha ka qarsato qisaastaanu xaq u leenahay ee hortaada taala cawaaqib xumada ka timaada adiga iyo maamulkaaga ka mas'uula wuxuuna noqon doonaa qaranka yaala Berbera ilaa Xiis in ay samaystaan maamul goboleed waanu ku dhawaaqi doonaa illa uga haybadaysan mayno haddaad fulin weydo dhammaan bulshada reer Soomaaliland culimo oqaal codkar waxaanu sheegaynaa in saraakiishii lagu dilay degmada Berbera ee gobolka Saaxil waxa loo xidhiidhay ka mid ah shirqoolka reeraysan waana la sii daayay culimada reer Hargeysa waxay si xoog leh oo laxaad leh uga hadlaan oo ay muddo dhan la qaylinayaan marka qofkooda la dilo diintu waa la fulin waayay laakiin markay dadka iyagu dilaan ma hadlaan culimada reer Hargeysa kuwa uu dhiibto dhaqaalaha iyo xoolaha kuwa yiraahdo waxay ka mas'uul yihiin abaaraha kuwa yiraahdo waxay culimo yihiin dadka kama hadlaan xaq darrada iyo cawaaqib xumada timi mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay haddaad fulin weydo waxaanu xaq u leenahay annaga ayaa fulinayna waana go'aanka lixaad ee beeshu qaadatay waana kama dambays waana digniintii kama dambays tahay cid kasta oo naga midina heegan bay u tahay maanta in ay u hub qaadato sidii ay kaaga hor iman lahayd adiga iyo dadkii cidayada dilayba